waxaana wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay uu idin hayo Calanka TV. qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah ciidanka laga keenay Eritrea oo lagu arkay dagaalka Boosaaso iyo sida maalmo ka hor loogu daabilay magaalada Boosaaso oo la ogaaday dagaalka oo hadda u dhaxeeya madaxweyne Farmaajo iyo Saciid Cabdullaahi Dani keeba Boosaaso ku hari doona. muxuu damacsan yahay madaxweyne Farmaajo haddii BSF ay gacanta u soo gasho magaalada Boosaaso? ciidamada BSF oo isku fidiyay xaafadaha Boosaaso lana wareegay madaxtooyada iyo hareeraheeda. dhaawaca ciidanka BSF oo laga dejiyay magaalada Muqdisho iyo hub dowladda federaalka ah ay u soo dejisay ciidanka BSF iyo goobaha saaka dagaalku ka dhacay iyo halka ay kala joogaan ayaan warbixin kaga haynaa. qodobada iyo kuwo kale oo xiiso badan ayaan caawa ku falaqeyn doonaa barnaamijkeena falaqeynta wararka. fadlan daawada haddii ay tahay marka koowaad aad soo booqato channelkeena subscribe dheh oo furo gambaleelka si aad u noqoto daawadaha koowaad ee wararkeena. mahadsanid. ilo wareegyo dhanka amniga ah oo ku sugan magaalada Muqdisho iyo Garowe ayaa laga soo xigtay in dagaalka oo ay toos u lug yeesheen ciidanka dhawaan sida qarsoodiga ah looga keenay Eritrea ee ka tirsan NISA, kuwaasoo dagaalka toos ula galay ciidanka Puntland ee Saciid Cabdullaahi Dani ka amar qaata. xogta ayaa lagu sheegay in si qarsoodi ah magaalada Boosaaso maalmo ka hor loo geeyay hub iyo askari dheeri ah si ay uga barbar dagaalamaan taliska wareejinta diiday ee BSF. waxaana shalay dagaalka ilaa maanta oo Arbaco ahayd dagaalka loo adeegsaday qaybo ka mid ah hubkaas oo aan horey loogu arag deegaanada Puntland. ciidanka dowladda federaalka ay geysay Boosaaso ayaa sida la sheegay magaalada ku galay qaab dharcad ah iyagoo si toos ah loo geeyay xarunta ciidanka BSF, halkaasna dareyskooda ka qaatay. ciidanka ayaana isugu jiray saraakiil iyo dabley aad u tababaran hubka nuucyadiisa kala duwan sita. madaxa muqaabaraadka Soomaaliya ahna taliyaha dabagalada NISA Korneyl Cabdullaahi Dheere ayaa lagu tilmaamay inuu yahay sargaalka sida tooska ah uga shaqeeyay in ciidamadan laga dejiyo magaalada Boosaaso si ay dowladda federaalka ugu suura gasho in magaalada Boosaaso oo ah isha maamulka Puntland ay gacanta ugu soo gasho Saciid Dani uu soo dhiibo. sargaalkan oo Farmaajo ku dhow ayaa horey u ahaa maskaxdii ka dambeysay in gobolka Galmudug gacanta u soo gasho madaxweyne Farmaajo. sargaalkan ayaana ka caawinaya hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka xeeladaha siyaasadeed weliba si qarsoodi ah isagoo aan marnaba la arkin sida saraakiisha kale ee hadda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. madaxda ka tirsan Puntland ayaa dareensan saameynta Korneyl Cabdullaahi Dheere, balse macluumaadka laga helay ayaa sheegaya in degmada Boosaaso si hoose lacag loogu bixiyay oo uga gudbiyay hub laga qaaday magaalada Muqdisho. dagaalka Boosaaso oo Saciid Dani rabay inuu ka qarxo muddo bil ah ayaa dhacay shalay ilaa maanta. ciidamadii Puntland ee shalay iyo maantaba dagaalama ayaa ku jaba dagaalka. qaar ka mid ah ayaa cadeeyay in BSF toos ay garab uga heleen Muqdisho, gaar ahaan sargaalkan xubinta sare ka ah hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. dadaalada uu madaxweyne Farmaajo ku doonayo inuu ku soo gacan geliyo maamulada Soomaaliya ayay tani kow ka tahay. haddii ay u suura gasho NISA inay Boosaaso soo gelisay gacanta dowladda federaalka ah, waxaa meesha ka bixi doona awoodda maamulka Puntland, waxayna toos u hoostegi doontaa dowladda federaalka ee Soomaaliya. wixii harayna waxay noqon doonaan Somaliland oo kaliya. dadka sida dhow ula socda dhaqaaqyada doorashada Farmaajo ayaa sheegay in Korneyl Cabdullaahi Dheere loo xil saaray inuu si toos ah awoodda ugu sheegto uu maamulo doorashooyinka lagu qabanayo Galmudug, Beledweyne iyo Boosaaso, isaga oo tusaya awooddiisa dalalka raba inay Soomaaliya soo farageliyaan. madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo mas'uuliyiinta maamulka ayaa hadda ku soo baraarugay awoodda dowladda dhexe ku yeelatay dagaalka shalay iyo ilaa ay maanta ka socday magaalada Boosaaso iyo hubka loo isticmaalay, waxayna hadda garan la'yihiin meel ay wax ka bilaabaan. siyaasiyiinta qaar ayaana qaba in awood lagu maquulin karo BSF kadibna laga ilaaliyo faragelinta dowladda dhexe, halka siyaasiyiinta reer Puntland qaarkood ay qabaan in arrintan hadda xal laga gaaro, haddii kale Boosaaso ay gacantooda ka bixi doonto. wasiirka amniga Puntland Cabdisamed Maxamed Gallan oo saxaafadda kula hadla Boosaaso goor dhaweyd ayaa ka hadlay dagaal ka dhacay saacadihii la soo dhaafay. wuxuu Gallan ku eedeeyay ciidanka BSF inay madaafiic iyo hubka culculus ku garaaceen goobaha shacabka degan yihiin, taasoo ah khasaaro kala duwan oo ka dhacay dagaalka. Puntland ayaa sheegtay in agaasimihii hore ee BSF Maxamuud Cusmaan Diyaano uu abaabulay maleeshiyaad qooreysato ah sida uu yiri wasiir Gallan. wasaaradda amniga Puntland ayaa ku dhaleeceysay Maxamuud Diyaano
iyo ciidanka u daacadda ah ee madaafiic ku garaaceen dekedda Boosaaso iyo meelo muhiim ah. Wasiir Gallan ayaa ku hajabay in hub waaweyn ay adeegsan kareen balse ay u naxeen shacabka iyo dowladnimada. Dhanka kale waxaa iyagana war-saxaafadeed ka soo baxay hay-adda amniga Puntland ee BSF ay uga hadleen dagaalka ka dhacay Boosaaso shalay iyo maanta, iyadoo dad badan ay ku barakaceen dagaalkaas. Qoraalka ay ku sheegeen hay-adda BSF inay weerarka lagu soo qaaday isla markaana ay ka xun yihiin dhibaatada shacabka lagu gaarsiiyey hubka culus ee lagu garaacay. Waxay sheegeen in yoolkoodu uu ahaa la dagaalanka dhanka argagixisada, balse aysan u dulqaadan karin shakhsiyaad shaar dowladeed wata oo eedeyn u soo jeedinaya oo ay ula jeedaan maamulka Puntland. BSF ayaa ku eedeysay dowlad goboleedka Puntland inay qaadi doonto mas-uuliyadda dhibaatada shacabka gaartay maadaama ay diiday baaqii ay soo saareen ismada Puntland. War-saxaafadeedka ay soo saartay BSF ayaa jawaab u ahaa hadal goodin u badnaa oo saacado ka hor ka soo yeeray wasiirka amniga Puntland Cabdisamad Maxamed Gallan, kaas oo duruucda warkiisu ahaa in wada hadal iyo waanwaan lagu dhammeeyo dagaalka iyo xiisadda BSF kala dhexeeya. Haddaba maxaa dhici kara haddii Dani uu ku guuleysan waayo inuu damiyo xiisadda ka taagan magaalada Boosaaso? Faa'iideysan ma u tahay madaxweyne Farmaajo in Siciid Dani uu ku adkeysto dagaalka uu ku hayo ciidanka BSF? Madaxweyne Farmaajo markii uu dalka yimid wuxuu dagaalka uga adkaa la galay maamul goboleedyada si uu uga takhaluso madaxdoodana uga dhigo kuwa dowladda hoos yimaada, balse dagaalkaasi waa uu ku guuldareystay. Waxa uuna mar kale isku dayay inuu maamulada awood ku noqoniyo dowladdana hoos keeno dhammaantood, kadibna u bedelo gobollo caadi ah. Iyaduna sidoo kale ma dhicin. Qorshaha kale ayaa ahaa in madaxweyne Farmaajo la yimaado xeelad kale uu Soomaaliya hal uga dhigi karo, waana midda uu maamulada qaar soo dhaweystay, kuwa diidana uu magaalooyinka ugu muhiimsanaa kala wareego xoog iyo xeelad tii uu awoodaba, kadibna uu ka qabsado ama uu ka naafeeyo meelaha indhaha u ah maamuladaas sida Gede iyo Boosaaso. Haddii Siciid Dani uu fahmi waayo farsamada Farmaajo iyo ku guuldareysto inuu damiyo xiisadda Boosaaso, waxaa sahlanaanaysa in si toos ah dowladda dhexe u soo farageliso dagaalka ka socda magaalada Boosaaso, Danina meesha lagaga adkaado. Haddii sidaas dhacdo, wixii Boosaaso ka soo baxa waxay tegi doonaan magaalada Muqdisho, dowladda dhexe ayaana maamuli doonta. Maamul goboleed dambena ma sii jiri doono, Danina waa isdhiibi doonaa. Taasina waa mid kale uu Farmaajo ku taami jiray ilaa iyo markii uu ra'iisul wasaaraha ahaa. Waxaa sidoo kale mawjado siyaasadeed ku furmi doonaan Somaliland, wax taabtana weysan. Bal aan aragno meesha ay wax ku dambeeyaan iyo cidda guuleysata.